asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan. qodobada warkeena maantaan idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo soo wacay madaxweynaha koonfurta Kuuriya maxay ka wada hadleen. Trump oo sheegay inuu adeegsanayo mudaharaadayaasha ciidamadiisa militariga. sargaalka goosadka Xaftar oo sheegay inuu laayay calooshooda shaqaystayaal kuwaasoo ku soo daabulay Turkiga wadanka Liibiya. qodobo kale ayaa raaci doona daawade ku soo dhawo warkaasoo faahfaahsan. Initiating system 1. System 1 loaded. waayahay marka lagu soo dhawow daawade qodobada warkaasoo faahfaahsan. taariikhdu maanta waa 2020 bisha 6 labadeeda. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa soo wacay madaxweynaha koonfurta Kuuriya Moon wuxuuna u sheegay inuu ku casuumay shirka G7 kaasoo dhacaya bisha Sebtembar. sidoo kale madaxweynaha maraykanka wuxuu sheegay inuu ku casuumay wadamo kale sida Australia, Ruushka iyo wadanka India. waxaa la sheegay wadanka koonfurta Kuuriya inay ka wada hadlayaan siday uga qayb gali lahaayeen shirka G7 kaasoo dhacaya bisha Sebtembar. haddii aan eegno mudaharaadayaasha ka socda wadanka maraykanka ayaa maraya maalintii 6 iyagoo madaxweynaha maraykankana uu ku hanjabay inuu adeegsanayo ciidamadiisa militariga hadday sii bataan mudaharaadadan sii socda. madaxweynaha maraykanka Donald Trump isagoo hadlayana wuxuu yidhi sidan: anigu sidoo kale waxaan qaadi doonaa tallaabo degdega taasoo ah mid lagu ilaalinayo magaaladeena weyn taasoo ah Washington DC. hameenkii aan soo dhaafnay maxaa ka dhacay magaaladan gebi ahaanba waxay ahayd ceeb weyn iyo magaalada burbursan. sida aan ka hadalnay waxaan diri doonaa kumanaan ciidamo ah kuwaasoo ah ciidamadayada militariga iyo sidoo kale saraakiisha sharciga si ay u joojiyaan rabshadahan, boobkan, kharibaadan, weeraradan taasoo doonayaan mudaharadayaashu inay ku burburiyaan hantida dadweynaha. wadanka maraykanka mudaharadayaashu waxay marayaan maalintii 6. sidoo kale waxaa la sheegay inay dhinteen 140 qof. iminkana wadanka Liibiya, sargaalka goosadka Xaftar ayaa sheegay inuu dhaawacay 60 ka mid a calooshooda shaqaystayaal buuri kuwaasoo soo diray wadanka Turkiga. wuxuu yidhi sidoo kale waxaan dilay buu yidhi 17 ka mid a wuxuuna baraha bulshada lagu faafiyey dhimashada wiilal ka mid a calooshooda shaqaystayaasha uu soo diray wadanka Turkiga. sargaalka goosadka Xaftar sidoo kale waxaa la sheegay inuu aqbalay codsi uga yimi kaasoo ahaa xibad joojin in laga bilaabo Liibiya taasoo uu soo diray xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres. qaramada midoobay sidoo kale waxay u dirtay 100 gaadhi oo kaargooya ama kuwa waaweyn ee qaada raashinka wadanka Suuriya gaar ahaan gobolka Idlib. haddii aan eegno iminkii wadanka Turkiga, duulimaadyadii caalamiga ahaa ayaa dib u bilowday wadanka Turkiga taasoo markii hore uu saameeyay xanuunka coronavirus, laakiin iminka waxaa la sheegay in dib loo bilaabay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee wadanka Turkiga. iminkana aan eegno wadanka waqooyiga Kuuriya. waqooyiga Kuuriya waxaa la sheegay in dib loo furay iskuuladii kadib xanuunkii coronavirus kaasoo si xun u saameeyay wadanka koonfurta Kuuriya, balse waxaa la sheegay maanta ay bisha Juun tahay 2 in dib loo furay dhammaanba meelihii waxbarashada iyo iskuulaadkii wadanka koonfurta Kuuriya. iminkana wadanka Brazil iyo wadanka Mexico. wadanka Brazil waxaa la sheegay inay ugu dhinteen xanuunka COVID-19 tiro ka badan ilaa 30,000 oo qof. wadanka Mexicana waxaa la sheegay inay ugu dhinteen ilaa iyo 10,000 oo qof. daawadayaal waxaa idinka haynay dhammaanba daafaha dunida caalamka waa naga intaa ku kulmi doona mid lamida waxaa idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.